tuulayar oo ka mid ah miyiga dadku waxay leeyihiin hal digniin oo keliya habeenkii waddada ha marin sababtu ma aha tuugo ma aha xayawaan balse waa nin aan la garanayn oo habeen walba waddada socda waxaa la sheegaa in ninkani uu socdo 12 habeennimo uu mar walba isku waddo soo maro uusan qof la hadlin uusan istaagin dadka qaar waxay yidhaahdaan waa ruux ma aha qof nool qaarna wax kale ay ku sheegaan laakiin muxuu yahay waxaas hal habeen wiil dhalinyaro ah ayaa go'aansaday waan hubin doonaa runta wuxuu fadhiistay geed agtiisa oo waddada ah saacaddu markay gaadhay 12 habeennimo dabayshu way istaagtay aygii wuu aamusay mugdigii uu sii cuslaaday kadib wuxuu arkay nin ka soo socda meel fog ninku madaxa hoos ayuu u dhigay si tartiib ah ayuu u socday cagihiisuna ma sinayn wiilkii uu gariiray laakiin wuxuu daawanayay markii uu ninku soo dhowaaday hawadu way qabowday ninkii si lama filaan ah ayuu u istaagay si tartiib ah ayuu madaxa u qaaday indhihiisu waxay ahaayeen kuwo aan caadi ahayn wuxuu si hoose u yidhi maxaad halkan u timid wiilkii uu qayliyey markay dadkii yimaadeen ninkii meesha ma joogo dadkii tuuladu waxay bilaabeen inay baadhaan raad cag ah ma jiro wax calaamad ah ma jirin xitaa eeyihii way aamuseen laakiin oday duqa ayaa yidhi kani ma ahan qof caadi ah odaygii wuxuu sheegay sheeko hore sannado ka hor nin ka mid ahaa tuulada ayaa habeenkii ka lumay waddadaas isagoo raadinaya qoyskiisa kadibna lama helin mar dambe dadku waxay rumaysan yihiin ruuxdiisa ayaa weli soconaysa habeen walba